maalin baa sidan oo kale xabiibka salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo u sheekaynaya saxaabadiisa ayaa mar qura wuxuu dhahayaa albaabka waxaa nooga soo gelaya nin ahlu janna ah mubaasharatan nin janno gelaya ahlu janna ah ilaahay doortay maxaa waad ogtihiin ilaahay wuxuu dadku ku dooranaya ilaa man ata allaha biqalbin qalbi baa la isku doortaa garo haddaad maqashid ahlu janna waay ninkan waxaa lagu doortay jannada geeyey waa qalbiga nin ahlu janna waxaa markiiba soo saxaabada ugu markiiba waa ka jeesteen rasuulka salawaatu wasalaamu calayh kulli waxay eegayaan albaabkii yaa ka soo geli doonaa waxaa ka soo galay nin iska simbol ah caraabi iska ah gacmuhu u lalaaban yihiin garkii biyihii weysada ka qoyan yahay halkaa ku haysta kilkishaa ku haysta kabihiisa dacashkiisa jambalkiisa wuu soo galay waa nin iska caadi ah war ninkan muxuu jannada ku galay wuu tukaday dadkuu salaamay allahu wuu baxay maalinkii labaad haddana waa isla halkan waxaa ka soo gelaya nin ahlu janna talow maantana yuu noqon doonaa waa isla isagii isla ninkii weeyaan maalin saddexaad nin ahlu janna ah halkan ka soo gelaya talow haddana yuu noqon doonaa waa isla isagii saxaabada marka khiiraa qabatay xasad baa galay qalbigooda xasadkanna waa kan la ogol yahay ee ogow xasad oo dhan xaaraan ma aha xasad ilaahay ogol yahaa jirta khayro ilaahay ogol yahay masayr ilaahay raalli ka yahay khayrka markaad ka masayrtid ma aha ka ibliiska walaalkaa khayrka aad u diidaysid ma aha aad u quuri laadahay bal waa mid aad walaalkaa uga masayraysid walaalkaas siduu ilaahay khayrkan ilaahay u siiyey oo kale allah hadduu ilaahay kuu siin lahaa inaad ku dayatid baad doonaysaa in laga qaada ma aha cabdullaahi ibni camr ibni caas ayaa ficil kulli way wada qabatay khiirada iyo xasadkaa wuu galay laakiin cabdullaahi ibni camr ibni caas ridwaan ullahi calayhim ayaa markiiba istaagay wuu ka dabagalay wuxuu yihi saaxib dhaar waxaan ku maray guriga aabbahay inaanan 3 cisho tegaynin walaalow martimu kuu noqdaa wuxuu yihi haa isma yaqaanaan laakiin maxaa walaaleyey suu ugu ogolaaday inama almu'minuuna allah walaalnimada fiicnaan badana islaamka 3 cisho meel kale ma eegaya mana seexanayo ogo cabdullaahi ibni camr ibni caas qalbigiisu indhihiisu waa intee ninkuu fiirinaya bal guriga habeenkii wuxuu qabtay ilaa maalinkii waa lis arkaa laakiin habeenkii waxaa markii addoommada ilaahay mu'miniinta habeenkoodu waa ka duwan yahay waa mu'miniinta ya kelmaddaas fiiriya habeenka dadka mu'miniinta ah waa ka duwan yahay habeenka dadka muslimiinta ah habeenka ninka mu'minka ah wuu ka duwan yahay habeenka ninka muslimka ah ninka muslimkaa maqribkiisu u seexdo ama habeenkii maba seexanaya balaayuu ku dhafraaya laakiin ilaa iyo waaga uu ka bariyo wuu iska jeefaa ninka muslimka laakiin mu'minka habeenkiisa waa ka duwan yahay habeenka kaa kale cibaado gooniyuu leeyahay ninka mu'minka ah cibaado khaasuu leeyahay ninka mu'minka ah cibaado gooni oo ilaahay uu maalinka qiyaamo xujo ugu noqdo oo uu yidhaahdo ilaahayow dartaabaa waxaa uu sameeyey oo uu jannada ku galaayuu leeyahay ninka mu'minka ah cibaado khaasa ayuu leeyahay cabdullahi ibni camr ninkan waxbuu ka waayey daahir ahaan isagaa soo kacaya cabdullahi ibni camr radi allahu canhu isagaa tukanaysaa tuleel isagaa ooyaya habeenkiina soo jeeda laakiin ninkan wuu jifaa markuu isgadanayo waxyar adkaara akhriyaa laakiin ma sidaasa maya cabdullaahi ibni camr tiisa waa muuqataa radia allahu canhu laakiin ninkan tiisa way qarsoon tahay waana waxa jannada geeyey way wanaagsan tahay marka qaar dadkaaga inaad ka qariisid xataa eeg waxyaabaha ilaahay harkii maalinka qiyaamaha lagu tegaayo 7 nin maxaa ka mid a nin gacantiisa midigtaa waxa ay bixisay aanay ogaanaynin maxay bidixda aanay ogaanaynin iska dhaaf dad kale jirkaaga inaad kala qariisid cibaadada ilaahay marka la yiraahdo inaad kala qariisid baa loo baahan yahay jirkaaga xataa meelaha ka mid inaanay ogaanin wax gaara loo baahan yahay inaad la tagtid xag kow
saddexdii markay dhammaatay ilaa martidu waa saddex cishaa lagu heshiiye wuxuu yidhi niyowde waxaan ogaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam saddex cisho ku dhahaya waa ahlu janna anna waxaan doortay buu yidhi oo aan jeclaaday inaan ogaado waxa jannada aad ku tagtay saddex maalin wuxuu yidhi wallaahi wax weyn anigu xataa garan maayo wuu iska baxay cabdullaahi wuu soo noqday wuxuu yidhi ukaadi laakiin waa tanaa ogow laakiin weligay ma seexanin ma ledin hurdana igama imanin anigoo qalbigayga qof wax ugu haya maaha muslim keli insaan anoo qalbiga wax ugu haya qalbigaygoo saxar saaran yahay qalbigaygoo madow qalbiga anoo insaan wax ugu haya weligay dhinaca dhulka ma dhigin markiiba wuu soo noqday wuu dansanaa cabdullahi bni camr bni caas wixii uu rabay buu ninka ka waayey markuu laakiin kelimadaa maqlay qalbiga in laga hadlayo qalbiga ayaa wuxuu yidhi isagoo faraxsan wallaahi waatan waxaa ku geeyey jannada waana midda aynaan heli karin qof walba uunan samayn karin allah waa arkaysaan qalbiyada meelay dadka geynayaan xabiib baa lagu doortay qalbiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxaabaa lagu doortay qalbiga daawadii way ina dhex taallaa dadkii qalbigooda ku daaweeyey waad arkaysaan si muuqaal ah in la leeyahay saddex cisho jannadii way tegayaan maxay ku tageen way dhaqeen daawada laynoo soo dejiyey ku dhaqeen qalbiyadooda oo maxaan ugu dhaqi laanahay maanta ugandhaynu joognaa aaway meeshaad ku dhalatay wiilkaaga jawharaad ku dhalatay adiga waad ka soo tagtay gaalkacyaad ku dhalatay halkaanaad joogtaa ceel caddaad ku dhalatay waxaad ku dhalatay buuhoodle hargeysaad ku dhalatay adiga maxaa inaga soo kaxeeyey maxaa inaga keenay maxaa halkan ina dhigay maxaynu badaha ugu dhammaanaynaa saxaraha ugu dhammaanaynaa maxaa tusbax go'ay oo kala firiday maxaa inaga dhigay maxaa ilaa iminka inu isugu soo noqon la'nahay maxaan taladeennii hal maxay u noqon la'dahay maxaynu u heshiin la'nahay qalbiyadeenna way soo maha waad garanaysaa meesha marka aynu ku heshiin la'nahay dalka ugu laaban la'nahay ugu midoowi la'nahay mar labaad gacmaha isu qabsan la'nahay waad garanaysaan lanfaduu min xawlik rasuulkaa la dhahaya salawaatu wasalaamu caleyh oo qalbiga nadiifkaa haddaad qalbigaaga naxariis la'aan ay ahaan lahayd qalbigaagu madow ahaan lahaa qalbiga aadan ka fikirteen laguu nadiifiyeen waa lagaa kala tegi lahaa soo waxaynu u kala tagnay waad garateen labadu isku aabbaa waxay u kala tageen gabadhii hooyadeed waxay u kala tageen wiilkii aabiyii waxay u kala tageen qalbi baanan meesha oolin xaqiiqa ma tahay mise maaha waxa caawa aan u qaylinayay aan u dhididay runtii waa arrinkaas bointigaas in aan idin taabsiiyo war ma ila garateen ilaah baan ku dhaariyey mimbarkii xabiibkan fadhiya salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma ila garateen qodobkaa ya halkaynu ka jirannahay ma ila garateen waa qalbiga